ayaa maanta si rasmi ah ciidamadii jabhadaasi iyo gaadiidkoodii ugu wareejiyay xukuumadda Somaliland oo uu wakiil ka yahay barasaabka gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka qaranka waxaana munaasabadii ciidamadaasi lagu qarameynayay ay ka dhacday deegaanka Karin ee afaafka buurta Daalo ee waqooyiga magaalada Ceergaabo ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha gudida dhexdhexaadinta xukuumadda Somaliland iyo jabhadii Korneel Suldaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Awgood ahna wakiilka suldaanka guud ee beelaha Garxajiis gudoomiye ku-xigeenka gudidaasi Boqor Maxamed Boqor Axmed Deere iyo sidoo kale xubno ka mid ah gudidaasi saraakiil iyo mas'uuliyiin kale mahadnaqaya marka koobaad Janaal Caaran mahadnaqaya oo naga aqbalay hawshan aynu halka isugu nimi nabad waxaan u mahadnaqayaa ciidanka halkaas soo fadhiya oo jabhad noqday oo guryahoodii ka tegay oo u bareeray inay jabhadeeyaan oo maanta noqday aqbalay inay ka mid noqdaan ciidanka qaranka waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag guddiga nabadgelyada akiisha ciidanka qaranka halka fadhida kala duwan waxaan u mahadnaqayaa jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha iyo wasaaradii aanu ka kulannay hawshan waxa maanta kubaddu taala dhinaca dowladda jamhuuriyadda Somaliland waxaana la oran jiray wadadiinu waa xidhan tahay mashruuci waa idinka bedelayna dekadii idinka xidhay mashaariicdii idinka soo taagay anagu furray xageega waa ka dhamaatay hadday dib u dhacdo dawladda u qoolan iyadana ku ceebaysan ee madaxweynuhu nagula soo ballamay ee dawladda sare nagula soo ballantay haddii halkaas furanto mashaariicdii waa bilaabmaysaa weeye mashaariicdii baanu sugaynaa waxaa ugu horraysa waddada tabca iyo dekadii maydh gudoomiye gaariga sigisguulkay waa raran yahay raashinkii buu sidaa lagalama hadhin gudoomiye baan kugu wareejinayaa qoladaasna waxaan leeyahay jabhadda ku soo dhowaada gobol tuuladiinnii goobtiinnii qarankeenii dowladdeennii dalka amaba degmada maydh iyo waddadeedii dadka waxaan u sheegayaa inay tahay dal hodana una baahan in la maal gashado waxaanu maanta idinku bushaaraynaynaa intiina naga maqani nabaddii adkaydee laga cabaadayay ee laga baqayay inaannu maanta soo afjarray oo ay halkaa fadhido waxaan leenahay mudane madaxweyne waana kaa Ceergaabona waa taa wixii xaggaaga jiray ay habsaamin wasalaam in badan baa lagu canaananayay Sanaag waxay noqotay goob dagaal maanta waxay isu rogtay goob nabadeed in fadhiisinkii u horreeyey aynu saaka halkan ku wareejinayno ciidanka qaranka iyo dawladda maantase waxaan u malaynayaa culaysku wuxuu saaran yahay sidaa la sheegay dawladdeennuu saaran yahay raggaa ciidanka ah waa raggii la cafiyey madaxweynuhu cafiyey ma aha rag maanta la cafiyayo waana rag ka mid ah ciidanka qaranka ee Somaliland waxaynu dadweynaha reer Somaliland iyo xukuumadda labadaba u cadeynaynaa maanta inay waddadaasi baraxan tahay oo cid dambe oo joogtaa jirin wax looga hakadaana aanay ool ee ay u baraxantay shaqo kasta oo qaranku ka qaban lahaa iyo mid kasta oo dadweynuhu ka fushan lahaa iyo cid kasta dhammaan waaxyaha ciidanka way ka qayb geli doonaan ciidamadan iyo kuwa kale aynu u tegi doonaaba waxaa maanta hortiina jooga ciidan tiradiisu aanay ka yarayn 180 askari oo ay halkaa taagan yihiin hubkii ay ku qaramaysnaayeen oo aynu ku wareejinayno shalayna uu nagu wareejiyey hogaamiyihii jabhaddan aynu hor fadhino oo annagii nagu soo wareejiyey innaguna aynu iminka ku wareejin doonno xukuumadda gudoomiyaha gobolka Sanaag ugu sareeyo ee hadda horteena fadhida iyadoo ay iman doonto madaxdii qaranka ee ka sii sareeyay waqtiga ay suuragal tahay oo loo qaban doono xaflado ballaaran oo ciidamada oo dhan la isku soo dari doono kuwa aynu galabta iyo berri iyo saadame u tagi doono iyo kuwa hadda joogaba gudoomiye naga gudda ciidanka kaliya kuma eka dadka qaramoobaya waxa ku jira xirfadlayaal badan oo aqoon kala duwan leh oo u baahan inay qaranka meelaha ay kaga haboon yihiin la geeyo inaan ku bogaadiyo guusha qaran ee ay soo hooyeen waxaana leeyahay oo qaranka Soomaaliland u sheegaya fursadda inaan la dayicin ee laga faa'iideeyo marka labaadna waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka
oo aan isleeyahay si xigmad leh buu u maamulay haddii aan barasaabadii ka horreeyey oo fududa ay joogi lahaayeen aan isleeyahay waaba inagu qarxi lahayd saddexaadna waxaan hadalkayga kelmaddayda aan ku soo ururinayaa garadag baan joogay aniga guddoomiye gobol maxamed kaahin hadalkiisa waad maqlaysay inuu yidhi 15 milyan baa arrintaa iyo ceelaf waynu xallimnaa yaan laydinka waayin guushaasoo ah inaanu inamadii majority ahaa ciidanka qaranka ee hore ugu jiray ee cadhooday cadhadii maanta ka soo noqday oo uu shalay tolo nagu wareejiyey korneyl caarre annaguna aanu maanta ku wareejinayno madaxda gobolka ee uu hoggaaminayo barasaabka gobolka yaa ciidamada annagu shalay baanu la wareegnay janankii nagu hogaaminayaa nagu wareejiyey annaguna maanta waxaanu ku wareejinaynaa qaranka iyo dawladda iyo madaxda halkan fadhida cadaalad darro ayaa raggaa dabadda u saartay waxaanu leenahay ragga madaxda xilka maanta haya waxa weeye cadaalad darrada ciidankaasi ka baxay ka biiya waxaan kaloo aad ugu hambalyaynayaa ciidamada aqbalay iyo janankii hoggaaminayey waa yeelkii nabadda 6 bilood u fadhiyey baan aad iyo aad yana u hambalyaynaynaa halkan wuxuu yahay maanta waa maalin taariikhi ah khilaafkii Soomaaliland inaga dhex dhacay dadku waa iskhilaafaaye ayaa inaga soo afgo'ay waxaynu rajaynaynaa in midnimo iyo horumar iyo walaaltinimo waarta ay dhacdo dalkeenu hore ugu maro midun baan anigu arrinteeda ku jifaynayaa waxaan leeyahay ciidankan maanta ciidanka qaran ku soo biray mid baan leeyahay waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina u samra ilaahay baa idinku ciisayn doona qarannimadana ka qayb qaata difaaca dalkiina u diyaar garooba ciidanka maanta aanu qaramaynaa mas'uuliyiinta qaranka waxaan u sheegaynaa ilaa madaxweyne ilaa taliyaasha ciidamada ciidanka qaranka oo dhan rag wuu ka qayb qaadanaya raggaasu soo dhaweyn buu idinka baahan yahay raggaasu ilaalin buu idinka baahan yahay reer ahaanna dhammaanta iyo xukuumadda soo dhaweyn baanu uga baahanahay waxaanu leenahay mar haddii wixii yar aanu tabannay mar haddaanu ka soo noqonnay oo maanta waxaan ku uri intayadii cadhootayna annagu aanu isu luqun laabnay oo aanu u diyaarnahay in qaran midan la helo waxaanu leenahay xagga dawladdana ha laga helo jabhaddan aan maanta hor taaganahay ee aqbashay wixii ay ula tageen ergaduna ay ka keentay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay shalay tana waynu wada ahayn waa naga cadhooteen oo muddo naga maqnaydeen maanta haddaa noo soo noqoteen oo aynu isu nimi qarankiinnii iyo calankiinnii iyo ciiddiinnii oo walba aad joogtay eedaan dibadda uga bixin baa maanta dib ugu soo noqoteen waa idin soo dhowaynaynaa ciidanka uu hoggaaminayey caare wixii dhinacayaga ah ee aanu xukuumadda wakiilka uga nahay waannu ka dhaliiltiraynaa xukuumadda jabhadda aanu markii horena qaarkood wada joognay qaarna aanu markii horeba kala maqnayn saaxiibayaal aad iyo aad baanu idiin soo dhowaynaynaa ciidamada qalabka sidee qarankaa ka mid noqon doontaan horena waa uga mid ahaydeen haddeerna waa idinku soo dhowaynaynaa qalbi furan baannu idiin haynaa khilaaf waa imanayaa laakiin waynu ka heshiinaynaa arrintaas aad iyo aad baannu idinku boorinaynaa wasalaamu calaykum waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa jabadda halkan fadhida ee go'aansatay ee maqashay xukuumaddooda u soo laabatay garatay inay qarankaasi inagu wada filan yahay waa yeelkaa maqashay halka fadhida waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa gacmo furanna waa idinku soo dhowaynayn jabhaddan ku soo biirtay ciidamada qaranka ee guddidii maanta ku wareejisay ciidamada qaranka iyagana waxaannu ku soo dhowaynaynaa ciidamada qaranka inay ka soo qayb galaan gaar ahaan waxaan u soo dhowaynayaa kuwa ku soo biiri doona waxaan ammaan badan siinayaa raggaa gartay ka maqnaa meeshoodii ee gartay inay ka maqan yihiin qarankooda ee waxay tabanayeenba yidhi waxaynu la tegaynaa meesheennii mahad badan baan u jeedinayaa waxaana leeyahay waa helaysaan wixii idinka maqnaayay waxaad tabanayseen muuse axmed ciige oo ku hadlayay afka jabhadda maanta la qarameeyey ayaa halkaasi ka sheegay in maanta laga bilaabo ay qarankooda barbar taagan yihiin waxaanu nahay annagu ciidankii jabhaddii dulmidiid ee janaraal caare maanta waa maalin weyn waxaannu si iska rasmiya ugu biiray ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaannu diyaar u nahay inaannu ciidankayaga iyo xuduuddayadaba aannu isla dhinac taagno jamhuuriyadda Soomaaliland waxaannu diyaar u nahay inaannu dalkayaga iyo dadkayagaba aannu kula noolaanno nabadgelyo iyo waxqabad
gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo abaanduulaha labaad ee ciidanka qaranka sareeyo guuto Saleebaan Barre Xasan oo halkaasi kula wareegay ciidamadan maanta la qarameeyay. daraadeed anigoo wakiil ka ah ciidanka taliska ciidanka qaranka iyo dhammaan ciidamada kale waxaan maanta ka gudoomayaa guddigii nabadeynta iyo maamulkii gobolka oo hawshan gacanta ku soo hayay ciidankan horteena fadhiya oo infantariga iyo tiknikada leh oo aanu hadda kadib ku dhiqi doono shuruucda ciidamada iyaguna ay heli doonaan xuquuqdii ay ciidamadu lahaan jireen oo aanan waxba maartay ka nusqaamin doonin oo la mid noqon doona ciidan weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. anigu waa barasaabkii gobolka farxadiisaan leeyahay oo maanta sabada soo yotay farxadda labaadeen leeyahay waxa weeye anoo maanta raggii la kaftoomi jiray iska celinaya oo abtiyaday maanta intay naaqbaleen ay nabad qaateen waxa lagu farxaa oo nin nacabna ka naxaya gacalla ku faanaya maanta waa aragtidiina iyo go'aanka qaateen dheeray in badan baan dheeray amba mid gobol aan ku dheeraado madaxda gobolka aan ahaado amba aan ahaado hawshan wada galay aan yaabsiyaday aad baan ugu faanaya wax lagu fanaatin abti ciidan lagu fanaatin aad baan ku amaanaya in danqaabo badan way soo gaadhay odayaashaas waana loo hanjabay waana lagu caayay wanaaga aynu maanta isugu nimid baanay dhashay wixii aanu anaguna waadkeysanaynay idina waadkeysanay abtiyaal anagu oran maayo wax kale waxa maanta ka mid ciidanka qaranka Soomaaliland ma aha ka militariga oo qura bilayska ka mid noqon doontaan asluubta ka mid noqon doontaan kabada ka mid noqon doontaan waxa la yaalo wixii kale xirfad gaar ah leh sibile aqoon lehina qof waliba meesha uu qalmo ilaa intayna la gaariso kaga hadhimayna waanu la wadaynaa halkaas aynu ka sii wadaynaa intay naga maqal kalena waynu u yeedhaynaa